السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي لهيد waxaynu qaadanaynaa caawa cashirkeenii 24aad marka la fiiriyo xagga kitaabka waxdada iyo cutubka aynu ku dhex jirnaan waxa weeye waa cutubkii afraad qiraa'atun hurra wa akhrin madax banaan iqra an-nas waxaad akhridaa baa lagu yiri qoraalkan wuxuu la ka shaqeeyay tadriibaatahu leelisyadiisa في البيت guriga kaga soo shaqeeyay litunaqishahu si aad ula doodid مع زملائك صاحبada في الصف adoo dhigataan fasalka ama bakalaaska waayahay mudun islaamiya casharkeena ciwaankiisu wuxuu yahay waa magaalooyin islaamiya ama islaamku ay leeyihiin qaala rasuulu sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri naxariisiina nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo ergeygii ilaahay uu soo dirsaday لا تشد لما أتكيستو الرحال كورها لما أتكيستو لما الصفراء لما آدو لما قورو وحد هدد إلا إلى 3 مساجد صدح مسجد موياني المسجد الحرام مسجد كواد حوية ومسجد حرمضة له ومسجد هذا يمسجد كي كان أي النبي صلى الله عليه وسلم ويلي مسجد النبي أي نقنيا مسجد هذانا والمسجد الأقصى يمسجد كفق والمسجد الحرام مسجد كحرمضة له في مكة مكة أيكيا لبالبيني والمسجد الرسول مسجد كنبينا أما رسولكنا في المدينة مقالة مدينة أيكيا لا صلى الله عليه وسلم نحرسنا متقلي كركي سهاء النبي والمسجد الأقصى مسجد فوقنا في القدس مقالة القدس أيكيا لا وهذه المساجد مساجدا هي أهم معالم هذه المدن أهم معالم على مدها أقومهم سن هذه المدن أي ليهن مقالوين كنوي وايه مساجدني saddexda ah ee aan soo sheegnay waa calaamadaha iyo astaamaha ugu muhiimsan ee ay leeyihiin magaalooyinkan saddexda ah waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Makkatul Mukarrama magaalooyinkaas ta u horeysa waa Makadii sharafta lahayd, Makadii la karaameeyay. Makadaas karaamada leh waxa weeye ashharu mudunil caalamka iyo adduunka magaalooyinkiisa ta ugu caansan weeye caalamkii al-islaami ee loo nisbeeyay islaamka. caalamul islaami magaalada ugu caansan waa Makkatul Mukarrama. tahfu ilayha waxa usoo xiisa qulubul muslimiina dadka muslimiinta qulubtooda jamiican dhamaantood oo kala degan min shatta biqaa'il ard dhulka goobihiisa ee kala gedisan muslimiinta ku nool. dhulka goobihiisa kala duwan muslimiinta ku nool ayaa u soo xiisa magaalada Maka. khasaha Allah ilaahay baa wuxuu ku gaar yeelay bitakriimi sharaf iyo karaamo cabra mukhtalafil usuri waqtiyada kala gedisan intii la soo mareeyay ayaa ilaahay wuxuu ku gaar yeelay karaamo iyo sharaf ay ku kaaliyaan ayuu ku gaar yeelay. wa aqsama biha ilaahayna wuu ku dhaartay magaalada Maka fi qawlihi ta'ala ilaahay orahdiisa la uqsimu ay uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bihada albaladi magaaladan wa anta nabi maxamedow xillun mid degan ayaa tahay bihada albaladi magaaladan. waxaa kaloo la dhihi karaa wa anta adigana xillun xalaal ayay ku tahay in aad ku dagaalantid bihada albaladi magaaladan inaad ku dagaalantid waa ay ku banaan tahay. nabiga kaliya ayay u banaanayd inuu ku dagaalamo magaalada Maka, cid ka dambaysana uma banaana inay ku dagaalanto. wahiya masqadu ra'si rasuul waana meeshii nabigu sallallahu alayhi wasallam
oo ku dhashay masqadu ra's masqadku waa dhicitaanka weeye meeshii uu kusoo dhacay nebiga madaxiisu ee uu ku dhashay wahiya makana masqadu ra'si rasuul waa meeshii nebigu sal ly slam uu ku dhashay muxamadin sala allahu alay wasalam nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wa mabcaduhu waana meeshii laga soo bixiyey ee laga soo saaray fiiha nazala alwaxyu maka ayaa waxa weeye waxyigu uu kusoo degay wa minha intashara maka xaggeeda ayuuna ka fiday oo uu ka baahay nuurulxaqi nuurka dhabta ah ee xaqa ah yubadidu isaga oo baabi'inaya oo tirtiraya alkufra gaalnimada isagoo tirtiraya fii kulli makaanin meel kasta ka tirtiraya yaqsiduhaa waxaa u soo qasda maka oo soo aada malaayiin alxujaaj malaayiin xaajiyaal ah ayaa soo aada kulla caamin sanad walba liadaa'i fariidati alxaj si ay u gutaan xajka waajibka ah wayaatiiha almuctamiruun waxaa kaloo yimaada magaalada maka dad soo cumraysanaya oo ka imaanaya min arjaa'i alcaalam adduunka dhinacyadiisa dacaladiisa geesihiisa waxaa dahdidba alislaamiyi ee islaamka ah wa fii makkata magaalada makana waxaa ku yaala alkacbatu almusharafa kacbada sharafta iyo karaamada leh waalmasjid alxaraam waxaa kaloo ku yaala magaalada maka masjidka xurmada leh waayahay masjidka xurmada leh ayayna kacbaduna kusii dhex taallaa wa huwa awalu beytin waa guri kii u horreeyey oo wudica la dejiyo linnaasi dadka loo dejiyo si ay ugu cibaadaystaan qaala tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi ina awala beytin guri kii u horreeyey ee wudica loo taago amaba loo dejiyo linnaasi dadka si ay ugu cibaadaystaan laladii kii weeye gurigii weeye bibakkata magaalada maka ku yaalay bakka iyo maka labadaba waxa weeye waa isla maka un waa laba magac ay leedahay mubaarakan isagoo ah mid la barakeeyey wahudan isagoo hanuun ah lilcaalamiina caalamka oo dhan iyo makhluuq oo dhan isagoo u ah waxa weeye hanuun waqad banaa alkacbata kacbada waxaa dhisay nabiyullaahi ibraahim nebi ibraahim baa dhisay calayhi salaam wabnuhu iyo wiilkiisa ismaaciil ayaa dhisay fii makaanin meel ayay ka dhiseen tuxiidu bihi meeshaas ay hareereyso aljibaalu buuro ay hareereeyaan oo buuro ay ku wareegsan yihiin ayaa waxa weeye ay ka dhiseen ibraahim iyo ismaaciil calayhim assalaam qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi waid wakti wadkur waxaad xustaa id wakti nebi maxamedow yarfacu ibraahiimu nebi ibraahim uu kor yeelayay alqawaacida aasaaska iyo gundhiga iyo sagxadda iyo salka waxaa dahdidba iyo seeska inta waad dhihi kartaa seeska uu kor yeelayay oo min albeyti beytka xurmada leh ee kacbada ah ee xaramka ah wakti uu kor yeelayay xus baa la yidhi nebi maxamed sal alla alay wasalam seeskiisa markii uu kor yeelayay ay dhisayey wa ismaaciilu iyo ismaaciil ay dhisayeen iyagoo leh rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow taqabbal minaa naga aqbal shaqadan aan hayno oo ah dhisidda kacbada wa fii makkata maka waxaa ku yaala min almashaaciri calaamadihii iyo astaamihii almuqadasati ee la dahiray mina ayaa ku taala wa musdalifa iyo meesha la dhaho musdalifa wa carafaat iyo meesha la dhaho carafa wasafa iyo walmarwata iyo safo iyo marwa ayaa ku yaala wa zamzam iyo ceelka loo yaqaano zamzam ee biyaha zamzamtii ay kasoo burqadaan oo kasoo baxaan almadiinatu almunawara madiinada waxa weeye la nuuriyey la iftiimiyey tucaddu waxaa lagu tiriya almadiinatu almunawara madiinada la nuuriyey almadiinatu alislaamiya madiinada iyo magaalada islaamiga ah athaaniyati ee labaad bacda makata maka kadib id yuujadu fiiha waxaa laga helaa magaalada madiina
masjid nabiy sala allahu alay wasalam masjidkii nebiga ayaa laga helaa naxariistii nabadgelya korkiisa ahatee qaala rasuul sal ly slam wuxuu yidhi salaatun salaad oo fii masjidi haadaa masjidkaygan lagu tukado fii masjidii masjidkaygan haadaa ee kan ah lagu tukado ayaa afdalu ka fiican min 1000 salaatin 1000 salaadood oo fii maa siwaahu wixii kasoo hadhay lagu tukado ila almasjid alxaraam ilaa masjidka xurmada leh mooyaane wa salaatun salaad oo fi lmasjid alxaraami lagu tukado masjidka xurmada leh ayaa afdalu ka fiican min 100,000 salaad 100,000 oo salaadood ayay ka fiican tahay fii maa siwaahu wixii kasoo hadhay lagu tukado masjidka xurmada leh 100,000 oo salaadood oo lagu tukado 100,000 oo salaadood oo lagu tukado meelaha kale iyo dhulka kale iyo hal salaad oo lagu tukado masjidka xurmada leh ayaa isu dhigma bada wuxuu ka bilowday taariikhu madiinati magaalada madiina taariikhdeedu almajidi ee sharafta leh ee wanaagsan fi alcasri alislaamiyi xilligii iyo waqtigii islaamka ayaa uu ka bilowday bacda hijrati rasuuli sal ly slam markii uu usoo hijrooday kadib nebigu sal ly slam ilayhaa magaalada madiina wamundu dalika alwaqti laga soo bilaabo xilligaas wamundu dalika alyowm laga soo bilaabo maalintaas saarat ilmadiinatu magaalada madiina waxay noqotay maqaran lilislaami xarun uu leeyahay islaamku wa masdaran iyo meel iyo xarun ay kasoo burqadaan linnuuri iftiinku uu kasoo baxo ayay noqotay waa iftiinka islaamka alladii kaasoo indalaqa baxay oo tegey waaya amaba fiday amaba faafay waxa dahdidba liyuniira alcaalama si uu u ifiyo nuurka islaamku adduunka oo uu ku ifiyo binuuri liimaan nuurka iimaanka iyo walhuda hanuunka wa fi lmadiinati magaalada madiinana masjidu quba waxaa ku yaala masaajidka quba awalu masjidin waa masaajidkii u horreeyey oo usisa lagu taago lagu dhiso lagu aas-aaso waxaa dahdidba cala taqwa alla ka cabsiga lagu aasaaso wa fiiha waxaana ku yaala magaalada madiina jabalu uxud buurta uxud baa ku taala allatii taasoo waqacat dhacday cindahu agtiisa ay dhacday qaswatu uxud duulaankii uxud agtiisa ay dhacday alqudus magaalada qudus baa ku timid waa magaalada saddexaad ee magaalooyinka islaamka ugu waaweyn alqudusu hiya almadiinatu waa magaalada athalithatu ee saddexaad cinda almuslimiina muslimiinta agtooda lianna fiiha waxaa ku yaala magaalada qudus almasjid alaqsa masjidkii fogaa almubaaraku ee la barakeeyey waayahay alladii kaasoo asra allahu ilaahay uu ka guuraysiiyey birasuulihi rasuulkiisa asra allahu ilaahay uu guuraysiiyey dheh birasuulihi rasuulkiisa ilayhi xaggiisa uu guuraysiiyey waxaa loo guuraysiiyey masjid alaqsa ayaa xaggiisa loo guuraysiiyey waxaana laga guuraysiiyey min almasjid alxaraam masjidka xurmada leh ayaa laga guuraysiiyey oo laga dheelmiyey qaala tacaala ilahi wuxuu yihi subxaana waxaa xumaan ka hufan alladii allaha asraa guuraysiiyey amaba dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa guuraysiiyey leylan xilli habeenimo a guuraysiiyey min almasjid alxaraam kana guuraysiiyey masjidka xurmada leh ila almasjid alaqsa masjidka fogna u guuraysiiyey alladii kaasoo baaraknaa xawlahu aan barakaynay hareerihiisa linuriyahu maxaan u guuraysiinay waxaa loo guuraysiiyey nabiga sal ly slam si loo tusiyo linuriyahu si aan u tusino ayaan u guuraysiinay min aayaatina aayadahayaga iyo astaamahayaga iyo calaamadahayaga inahu ilaahay huwa asamiicu waa alle wax walba maqla albasiiru oo wax walba arka walmasjid alaqsa masjidka fogna ula alqiblatayn labada qibladood ee muslimiintu ay leeyihiin teedii hore weeye waqad baqiya qablahu waqad baqiya wuxuu ahaaday dheh oo uu baaqi ku noqday qiblatan isagoo ah qiblad iyo meel loo tukado
qiblatan lilmuslimiina muslimiinta ayuu qibla u ahaaday iyo meel ay u jeestaan xataa asanati athaaniyata lilhijra ilaa iyo laga soo gaarayo sanadii labaad ee hijiriyada xaytu taxawalat alqiblatu halka ay ka wareegtay qibladu ila almasjid alxaraam ay u wareegtay masjidka xurmada leh kama qaala tacaala sidii ilaahay uu yidhi meeshaas waxay ahaan jirtay waa masjid al aqsaaye qiblada muslimiinta iyo meesha ay u jeestaan marka ay tukanayaan ay ahaan jirtay waxayse u wareegtay qibladu markii dambe masjidka xurmada leh xaggiisa in loo jihaysto oo loo tukado qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi qad naraa waanu aragnaa nebi maxamedow taqalluba wajhika fi samaa wejigaagu inuu u gedgadoomayo oo uu fiirfiirinayo xagga cirka iyo samada falanuwalliyannaka waan kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo oo tardaaha aad raalli ka tahay nebigu sal ly slama cirka ayuu u gedgadoomayay wejigiisa oo uu fiirfiirinayay si waxa weeye loogu bedelo qibladiisa magaalada maka oo looga wareejiyo waxa weeye masjid al aqsa in laga wareejiyo ayuu jeclaystay oo loo wareejiyey qibladiisa xagga maka markaas waxaa leeyahy qad naraa waanu aragnaa taqalluba wajhika wejigaa gadgadoonkiisa fi samaa samada inuu ku noqnoqonayo falanuwalliyannaka waa kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo iyo meel loo jeesto marka salaada la tukanayo oo tardaha aad raalli ka tahay fawalli wajhaka wejigaaga jeedi baa layidhi shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa u jeedi waxaytumaa kuntum meel kastoo aad ku sugan tihiin aad joogtaan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatra masjidka xurmada leh xaggiisa u jeediya baa layidhi alqudus magaalada qudus baa layidhi caasimatu filistiin waa caasimadii iyo magaalo madaxdii falastiin waddanka falastiin loo yaqaano iqtasabahaa waxaa dhacay alyahuudu yahuudda ayaa dhacday caam 1940 iyo waxa weeye 8 miilaadiga ayay dhaceen waqad qusimat waa la qaybiyey ilaa qismayni laba qaybood ayaa loo qaybiyey waayahay waa quduse humaa labadaa qayboodna waxa weeye alqudus asharqiya qudusta bari alqadiimatu ee hore wa fiiha qudusta loo yaqaana alqudus asharqiya waxaa ku yaala almasjid alaqsa masjidka fog waqad dallat way ahayd jus-an qayb oo min adifati algarbiya ka mida daanta galbeed waa qudusta waxa weeye bari alqudus asharqiya ayaa laga wadaa waxay ahayd baa la yidhi qayb ka mid ah daanta galbeed ee fi lmamlakati alurduniya boqortooyada urdun alhaashimiyati ee loo nisbeeyey reer banu haashim ilaa an waqaca ilaa iyo uu ka dhacay cudwaanu lyahuud cadowtinimadii iyo gardaradii yahuudda calayhaa ilaa uu ku dhacay gardaradii yahuuddu ay ku dhacday oo ay ka qabsadeen waaya waa qaybta waxa weeye alqudus asharqiya ayaa loo jeedaa sanadii ay qabsadeen waa goorma waa 1967 miilaadiga faxtallaha israa'iil baa qabsaday baa layidhi israa'iil ayaa qabsatay dimna maxtalat iyadoo ka mida waxyaabihii ay qabsatay oo min alaraadi alcarabiya dhulka carbeed ah meelo badan oo dhulka carbeeda ayay qabsadeen waqtigaas waalqudus algarbiya qudusta galbeedna aljadiidatu ee cusub wahiya iyadana taxta alixtilaali waxay hoos joogtaa gumaysiga iyo waxa weeye qabsiga ay qabsadeen yahuuddu dhulka falastiin ayay hoos joogtaay wahiya taxta alixtilaali alyahuudiy waxay tahay meesha ay haystaan amaba ay gumaystaan yahuuddu ilaa iyo laga soo bilaabo mundu caam 1900 iyo waxa weeye 47 ayaa ay haystaan
maanta casharkiina intaas ayuu ku eegay casharka cashar lamid intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu